Deertii ayaa bilaabatay iyadoo aad arkaysaan sida geeduhu midabku u bedesheen isla markaana caleemuhu ay geedaha ka daadanayaan. Deerta waxaa daba jooga jiilaal oo ah mid ka duwan deerta oo dhulka cadaanayo ama dhirtu ay dhimanayso. soo dhawaada, saad arkaysaan waxaad maqasheen codkaygii idinkoon muuqaalkayga arag. sidaa awgeed yaa waxaa loo yaqaanaa qaabkan marka loo sameeyo editingka JCat. sida kale iyadana ka duwan waxa weeye inaad maqashaan, inaad muuqaalkayga weysaan aniga oo hadlaya sida hadda aan u hadlayo, oo aad aragtaan sawir ka duwan sida hadda aragtaanba, laakiin codkaygii oo wadwali si maqashaan. taasna waxaa la yiraahdaa elcat. JCat iyo elcat maxay kala yihiin, sida loo isticmaalaa, iyo sida editingka loogu sameeyo. markaad sameynaysid Final Cut-ka sidee u sameynaysaa JCat iyo elcat. taasaan maanta sameynaynaa. intaas ayay ku saabsan tahay maanta. waa mahadsantihiin. soo dhawaada mar labaad. hadda waxaan furaynaa programkii Final Cut-ka ugu horeeyay. xaggaasaan dhigayaa. waxaan kaloo soo qaadayaa video aan anigu hadlay. videogan hadda aad aragtaan aan meesha soo dhigay hadal ma laha, waa video caadi ah. waxaan soo qaadayaa midka aan aniga hadlayo oo ah kan. labadan video markay saas isugu xigaan oo kale waa video ah sawir aan hadal lahayn iyo kan hadalka leh. marka marmar dabcan waxaad doonaysaa inaad sawirkan iyo hadalkan inaad dhex gelisid sawirka ama ka hormarisid hadalka sawirkaaga. marka sidaa awgeed waxaad sameynaysaa waa laba mar baad ku dhufanaysaa si ay kula foqdo codka iyo sawirka. kadibna waxaad sameynaysaa, waxaad jiidaysaa sawirka, maadaama aadan doonaynin sawirka adiga hadlaysa ama adiga sawirkaaga, waxaad doonaysaa sawirka kale ka horeeya caleemaha ah ayaa soo dhexgelinaysaa hadalkaagi. marka waxaad aragtaa hadda inay u ekaatay J, yacnihii kaas ayaa waxaa loola jeedaa, sidaas ayaa waxaa loogu bixiyey JCat ama ja ayaa meesha loo bixiyey sida loo jaro. hadda waxaad aragtaa codkaygii inuu kasoo hormaray isla markaana aragaygii caleemuhu ay geedaha ka daadanayaan. deerta waxaa daba jooga jiilaal oo ah mid ka duwan deerta. kaas waxaa la yiraahdaa JCat. waxaa ku soo haray kii la oran jiray elcatkina haddaanu sameynayna isagana. waxaan soo qaadanaa gaarigan. gaariga cod ma laha. waxaan doonayaa hadda marka waxaan doonayaa marka sawirkayga qorsoma hadda in codkayga aad sii maqashid weli. iyadana waxaa yidhahdaa elcat, waa bilcagsiga kii hore. waxaa sameynaysaa marka waxaa soo jiidaysaa sawirka, iyadana waxaa arkaysaa hadda sawirkayga sidee u sameynaysaa JCat iyo elcat. taasaan maanta sameynaynaa. intaas ayay ku saabsan tahay maanta. waa mahadsantihiin. soo dhawaada mar labaad. kaana waa aragtaan waa elcat. barnaamijka maanta intaasuu ku egyahay. waxaan filayaa inaad ila fahanteen sida JCatka iyo elcatka loo sameeyo. baraha bulshada dadku inta badan hadda waxay sameeyaan video ay leeyihiin ayay iga sameeyaan, maadaama maanta uu sahlanaaday in qofku iska duubo video keligii ama uu sameysto bara bulshada uu kaga hadlo wuxuu isaga jecel yahay. hadday noqon lahayd dar, hadday noqon lahayd style, hadday noqon lahayd waxaan ku yiraahdaa kubad, hadday noqon lahayd feer, hadday noqon lahayd cuntada si loo kariyo. marka qofki maanta wuu duubi karaa filin
laakiin waxa yara adag oo cilmi yar u baahan si yar oo professional sidee ayuu isugu dhadhajinayaa ugana bixinaya waxyaabaha uusan rabin inuu kusoo daro videogiisa oo kale. Sidaa awgeed ayaanu channelkan u furnay inaan dadka uga faa'iideyno habkii ay isugu xirxiran lahaayeen videogooda iyo codkoodii waxyaabahay u baahnayeen. Marka waxaan leeyahay idinkoo oo mahadsan su'aalaha aad qabtan oo soo weydiin kartaan waxa aniga ka garanayo inta aan aniga cilmi u leeyahay ayaan ka jawaabayaa inta kale laakiin waan helinaa dad naga caawiya markastaba. Sidaa awgeed ha moogaanin channelkan booqashadan nagu soo badi sida aan ugu kala wada xagaadee.